السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن أو وناكسن لما نغيارتا قيمة قدرنتي نغا مدن مeel walbo aad ku sugantihiinba waxaan leenahay fiidnimo wanaagsan caawa habeenimo ay arbacay soo galayso talaadana ay sii baxayso taariikhduna waxa ay ku asteesan tahay 5 bisha 9aad ee September sanaduna waa 2023 saacada geeska Afrikada barina iminka waxa ay tilmaamaysaa 9kii habeenimo iyo qadar 15 daqiiqo ah ku soo dhawaada mar kale channelka Reexaan Channel meel walbo aad joogtaanba caawa waxaynu soo gudbin doonaa muuqaal kale oo cusub caawana muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay 10 xiwaar ah oo ku baxaya afka Carabiga oo u dhaxeeya laba qofood oo saaxiibo ah isaga ayaana halkan ku soo gudbin doonaa aynu gudagalno xiwaarkeena caawa waxa uu ku bilaabanayaa صديقي ماذا تفعل في وقت فراغك وحاول صديقي وذيجيو ماذا تفعل محاد قبطا في وقت فراغك وقتك آد فراغها الليذة محاد سميسا ماذا تفعل في وقت فراغك محاد قبطا وقتك آد فراغها الليذة وقتك فراغها الليذة أو مركز شقاء آدم كجرين maxaad qabataa oo aad jeceshahay hibadaada ah inaad ku nasato waxa uu yiri fi waqti firaaqi waqtiga aan firaaqaha leeyahay fi waqti firaaqi waqtiga anigu firaaqada leeyahay adhabu waxaan aadaa ilaa shaadi liido xeebta liido ayaan aadaa awil jaziira ama xeebta jaziira ayaan aadaa adhabu waxaan aadaa marka aan firaaqa leeyahay إلى شاطئ ليدو حيبتا لو يقانو ليدو أو الجزيرة أما حيبتا الجزيرة أيان هذا من يذهب معك ليدو يا كراعة من يذهب معك يا كلتك أما يا كراعة أو حيبتا كل هذا وحير بعض أصدقائي قار كميدا صاحب ذي بعض أصدقائي قار كميدا صاحب ذي ayaa yadhabuuna maci aniga iraaca oo igu weheliya damashaadka waaye xeebta liido ama jaziiro kayfa tasilu allahi kayfa tasilu sidee baad ku gaartaa ilaa shaadi liido xeebta liido sidee ku tagtaa oo sidee ku gaartaa kayfa tasilu sidee ku tagtaa ilaa shaadi liido xeebta liido sidee ku gaartaa waxa uu yiri astaqillu anigu waxaan raacaa wasaa'ilu naqli al-aam gaadiidka dadweynaha astaqillu anigu waxaan raacaa macna arkabo waxaan fuulaa wasaa'ilu naqli al-aam gaadiidka dadweynaha allati tusamma taa oo lagu magacaabo homey ayaan raacaa gaadiidka dadweynaha ay wada raacaan ee loo yaqaan homey ayaan raacaa man yadfacu rusuuma as-sayyara yaa bixiya qarashka gaadiidka man yadfacu yaa dhiibo waay yaa ka bixiya rusuuma as-sayyara qarashka gaadiidka transportka waay ama lacagta gaadiidka aad ku raacayso yaa ka dhiibo yaa ka bixiya al-jaddatu tu'diha li ayeeyo ayaa isiisa way aljaddatu ayeeyo ayaa tuudiha li isiisa aniga ayeeyo ayaan ka qaataa way ayada ayaga bixisa lacagta baabuurka marka waxa uu yiri ayna waaliduka aaway aabaha ayna waaliduka aabaha aaway macna ayna abuka way aabahaaga aaway isaga laqad maata wa ana sagiirun waa uu geeriyooday anigoo aad u yar ayuu geeriyooday laqad maata waa uu dhintay way aabahay wa ana sagiirun aniga oo yar ayuu dhintayba anigoo yar
ayuu aabahay geeriyooday oo la oofsaday laqad qaamat jaddatii bitarbiyatii laqad qaamat jaddatii ayeeyday ayaa u istaagtay waa bitarbiyatii aniga barbaarinteeda iyo korinteeda ayeeyday ayaa taa dhaxda u xiratay laqad qaamat jaddatii bitarbiyatii ayeeyday ayaa isoo korisay ayada ayaa mas'uuliyadda xilka koriimadeeda iyo barbaarinteeda iyo tarbiyadeeda ayada ayaa dhaxda u xiratay oo ayada ayaa isoo korisay wa ayna waalidatuka aabay hooyada ninka ayuu sheegay oo ay soo korisay ayuu yiri aabihiina waa uu geeriyooday marka waxaa la weydiiyey wa ayna waalidatuka wa ayna ummuka wa aabay hooyada wa ayna waalidatuka hooyadaana aabay hiya taciishu ayadu waxay ku nooshahay fi riifi ceelbuur miiga ceelbuur ayay ku nooshahay hiya taciishu fi riifi ceelbuur hooyadee macnaha waxay ku nooshahay miiga ama baadiyaha ceelbuur ayay ku nooshahay waayahay hal taciishu maca jaddatika alaana iminka ma ayeeyda ayaa la nooshahay hal taciishu maca jaddatika alaana ayeeyda miyaa hadda la nooshahay laa ayuu yidhi maya anaa aciishu waxdii aniga keligay ayaa ku nool fii gurfatin sagiira qol yar ayaan ku noolahay ama kaga noolahay fii xayi weydow xaafadda la yidhaahdo weydow ayaan qol yar kaga noolahay keligay tuufiyad waan la oofsaday oo way geeriyootay jaddatii ayeeyaday yowma aljumcati almaadi jimcadii dhoweyd ee lasoo dhaafay ayay iidana dhimatay laa maya ayuu yidhi anaa aciishu waxdii keligii ayaa ku nool fii gurfatin sagiira qol yar waay qol baaxad ahaan yar ayaan keligii kaga noolahay fii xayi weydow xaafadda la yidhaahdo weydow oo u dhexaysa ex control iyo ceelasha biyaha waaya tuufiyad jaddatii ayeeydeena waa la oofsaday oo way geeriyootay ama way dhimatay yowma aljumcati almaadi jamcadii lasoo dhaafay ayay dhimatay allaahumma irxam jaddatii ayuu yidhi hadalkiisa wuxuu kusoo koobay ama kusoo gabagabeeyey allaahumma irxam jaddatii ilaahayow u naxariisto ama rabbiyow u naxariiso ayeeyday u naxariiso allaahumma aamiin maadaama ayadu ay soo korisay oo soo barbaarisay ilaa uu ka caqli yeesho uu ka qaangaaro uu xoog iyo tamar uu ka yeesho maskaxdiisana ay taam ka noqoto waa hagaag intaa ayaa inaguna kusoo koobaynaa cashirkaasi wada sheekaysiga ahaa ee u dhexeeyay labadaasi qofood idna waad mahadsantihiin meel walbo aad joogtaan channelka Reexaan channel haddii aad ka heshay ama aad u bogtay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo asxaabta kale ee kugu xiran ayagana share ku dheh ay la wadaag meel walba aad joogtaanba markale waxaan idin leenahay hurdo caafimaad leh intaan cashirkiisa xiga aynu ku kulmi doono dhammaanteena waxaan idin leenahay isma dhaafno nabaadiino noola kulantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh